إبراهيم حسن علي قدوميه قبل كهود وقابسنا حكومة سوماليلاند وقيبة كميدة وربعين تقول هذا الجودة هرجيسة أي دبول كقاضي نسك عزلي حلكي قدومي نمو قبل كهود يسوقنا كسب بي وليس هيستحيلجن ديجان كوكسو تشدو إسمار كان حكومة دوها بيراته أنا وحبك قبل شقينا نبدأ حنا عاد بنرتب مهد علينا يا إحنا مهد علينا يا قبل كهود يبل شذا كرقان أو بلش آدو شرف بدن ورنتي آدو قيمة بدن ولقي أنا إلا ورنتي سيلا سوى شقيان waxaan aad ugu mahadnaqayaa bulshada gobolka Saraar oo aan barasab ka soo ahaa intii uu madaxweyne Siilaan iyo xilka hayay runtii aad ila soo shaqeeyay runtii waxaan runtii maanta doonayaa inaan ku dhawaaqo inaan iska casilayo xilkii gudoomiyaha gobolka Hawd iyadoo ay jiraan culays igaga imanaya deegaanka aan ka soo jeedo iyo ka aan gudoomiyaha u ahay labadaba cabasho far badan oo ay ka tirsanayaan ay tirsanayaan aanan isku dayay inaan wax ka xalilo in far badan aan isku dayay inaan wax ka xalilo oo wax ka sii daramooyaan wax xalaho ka soo kordhaya aanay jirinin ayaa waxaan runtii goostay iyadoo waliba ku sii xeerayeen duruufo maamul oo cakiran oo wadanku hadda ku jiraan ay runtii ku sii jiraan waxaan goostay iyadoo aan muddo dheer oo 3 sanadood iyo badh ku simanaan ka fikiray inaan iscasilo waxaan haddana in badan aan xeerinay waan tixgelinay madaxweynaha xilka ay magacaabay oo sharaf iga mudan runtii oo nin daacad ah oo nin soo shaqeeya oo nin wax qabad ah laakiin waxaad moodaa duruufo kale oo isaga laftiisa iyo maamulkiisa ku xeeran oo iyana dhanka kale u shaqeynayaad moodaa inay u sii kaliftayeen marka aanan xilkiisii ahayn maadaama uu isaguna aanu maanta sharaxnayn waqtigii muddo xileedkiisana uu dhamaaday maalintii doorashadu dhacaysay uu saxaxay hawsha ay ka dhamaatay waxaan goostay tixgelintii aan madaxweynaha tixgelinayay waqtigeedii inay dhamaatayo hadda aan dadweynaha iyo bulshada gobolka aan gudoomiyaha ka ahay iyo gobolka aan ka soo jeedo inaan tixgeliyo culayska ay ugu hayaan runtii aan xamili karin inta ka badan marka waxaan aad ugu mahadcelinayaa mar kale madaxweynaha oo shaqadii wanaagsaneed ee nadiifta ah ee daacadnimada lahayd oo dalka ugu shaqeynayay runtii aan intaaba ku tixgelinay runtii dadkii kale nadiifta ah ee xukuumadda aanu ku wada jiray aan soo wada shaqeynayna runtii aad baan ugu mahadcelinayaa waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ugu celinayaa bulshada iyo dadweynaha gobolka Hawd kuwa degan iyo kuwa ka soo jeedaba ama Hargeysa joogan ama dibadaha joogan sida ila shaqeeyeen sidii sharafta lahayd ee iyaga oo wax badan tirsanaya markii gudoomiyaha la iga dhigay ay ii soo dhaweeyeen aniguna runtii si hagar la'aan baan ugu shaqeeyay oo daacadnimo ku jirto waxaan rajaynayaa intaan sii noolahay siyaasadda ku sii jirana inuu wada shaqeynteedii halkii ay ka sii socon doonto aad iyo aad baan idin salaamayaa mustaqbalkayga siyaasadeed iyo duruufaha kale ee ku xeeran iscasilaadeyda mar kale aan ka hadli doonaa maanta dib baan u dhigayaa in warkaygu waa iscasilaadaasun waxaan wariyaasha ka raali gelinayaa maanta inaanan ku talagelin inaan wax kale oo intaa dhaafsiisan ka hadlo waxaanu guud ahaan ka gaabsaday in warbaahintu weydiiyaan su'aalo dhaafsiisan inta uu saaka u soo bandhigay oo Faysal Maxamed Aadan Faysal FIFA TV-ga caalamiga Somali Cable magaalada Hargeysa.